buskudaan sameynaya oo gacan ku qasi doona insha Allah waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doonto soo dhawaada fadlan haday ku cusubtahay subscribe taabo like saar noo sii share garay insha Allah durbi inoo buskudkan waa buskudkeen buskud Soomaaliga ah waay oo aad iyo aad u sahlan oo gacan ku qasinaysa u jeedeen badarkii oo room temperature ah waay badarkan waxa waa unsalted banaanku iyaalay soo jirasaan u jeedaa sokortii aan waxaan ku shubay koob iyo rubac aniga sokorta badan ma jecli so waxa weeyaan hadda rabtina ka badsatay waa ka badsan kartaa no problem ukuntana afar arbeen ku daro laakiin waa iska bedelay dhex markaa maraayo oo qasaya ay waxaan dhahay I don't want inuu saas u bato soo xaqiiqa dhigan irxabada waa iska dhignay soo saddex xabo ukun ah ayaan ku qasay waa arki doontiin vanilladii baking powder ayaa ku dari doonaa flourka u jeedin waxaan ku daray mataqaanaa cornstarch mataqaanaa cornstarch waxaan ka wada waraanka waay okay waraanka ku daray saddex qaada camal ay ahayd waxaan qiyaastay qaadada waaweynka ah waaye vanillada iyo baking powderdan waa u jeedaa ayaan kula qasiyaa burka slowly aan kula qasiyaa 6 koob oo bur ah weeyaan inta ka hartay waa idin tusi doonaa video dhamaadkiisa ka arki doontaan okay qaarna waxaan ka qasanayaa kokowga because waa la jecel yahay madowga iyo kan isku qasan style hor leh waay waa u jeedaa badarka room temperature ah sokorta bakeerigaas weynaanta badan soo qaato waa bakeeri rubac camal waay saddexda qaado oo cornstarch waa kaasa vanilladii baking powderdi iyo flourkii 6 koob ah waana kaasa hadda kokowga waa kana as usual kokowga aniga sokoran ku dara why because kokowga qaraar uu ka dhigaya because waa qaraarsan yahay okay so sokoran ku dara suumarka iga qaraarin wax yar markaan intaan ku qasaya xogaa yar iga badanaya soo waa ka daadinaya because hadaan intaas ku sii wado waxaan diidanaa inuu iga sii adkaado dareenka gacantaada waay okay gacantaada dareen ha ku ahaato qiyaasta qiyaasanaysid ma la rabo inuu ka adkaado ma la rabo inuu ka jilicsanaado so adiga waxa waaye the more aad ma aragtay feel garaysi waa dareemaysaa difference-ga I don't know saan ku sharaxo bad gacantaada ku dareemaysaa okay dhig inuu ahaadana lama rabo inuu adeeg ahaadana lama rabo because machine isticmaalaya okay geedkana birta xunta gacanta lagu riixriixay isticmaalaya oo ujeedaa intii kale ii hartay ayaa burka aan ku dhamaystirayaa well the whole thing ma ku dhamaystirayo arki doontiin insha Allah inta ka reebo nus kaab camal ka haray 6 kaab oo burka ahaa oo including kokowga dawaa ujeedaan inta qaada aan maaragtay xisaabiye laba qaadan jeclahay inuu ahaa Soomaa qaadooyinka yaryarka ah waaya qaadada oo shaaha lagu qasan waaye way kala duwan yihiin okay qaadada weynta ah iyo qaadada yarta ah alright so waa ujeedeen labada waxaan qaatay laba qaado oo yaryarka aan ku shubay kokowga ku qasay and then wixii maaragtay extra ah gacantaada dareenka ayay ku dareemaysaa soo wixii extra ah waa ka tuuray because waxaan diidanaa inuu ka sii adkaado remember last time ka buskudkan sameeyay haddaad aragto videogaasito xoogaa yar iga adkaaday okay markaan geed ku riixay tartiib in ugu riixay ahayd because bir waay inkastoo uu maaragtay kuwayga hore ee plastic ahaan jireen jabi jireen kan waa bir waay ma jabaayo laakiin wuu diisman karaa oo geesuu ka daadan karaa soo maaha anyways waa ujeedin burkii intaan ka reebay adiga nus 5 bar aan dhahay gacanta u taagan kash ya waa ujeedin waan qasaya ilaa ma aragtay aan isdhaho gacantaada dareen ku ah waxaan kula wadaagayaa boxka meeshaan kasoo gatay birtaaneeto oo cookie presska ah waxaan ilooba videogii hore inaan ku dhaho Amazon abaya noogu soo qorto tir aniga kayga Amazon ka gatay isticmaalan ku dhihi lahaa buskudkan hadda u samaysid bishii hal mar ilmahaaga hadda u samaysid guriga buskuda ku oolay fara badan because waa ujeedaan inta hadartaan ciida dad badan aan gift u siiyay wax badan aan naga noo haray second time ka sameynayaan waa kan oo nooc kale u sameeyay geedkan maaragtay cookie-gan boxkan maaragtay hadda arkana tahay Amir ayaa ka soo gatay okay alaabtan hore u isticmaalo waa nuuqa soo maanta fururkaana raba inaan tijaabiyo because waxa laga bedeshay buskudkayga shaqshaqaas ayaan sameeyaa okay si wuxuu wato alaabtaas dhan la yimaado maanta waxaan rabaa inaan sameeyo buskudkeena traditionalka ahaa waa kana bartiisi kan intaa laga furaa tibi waxaan waaye intaa la gelinaa markaa la gelinaa saasaa loogu xiraa hadda waa dhaqaaq waan dhaqan yihiin okay intaan tijaabinaynaa geedkan waxaa la soo saaraa sanad umaleynaa bad sanadkii hore igu cusbaa sanadkan intaan extra soo saaray
ولا استعمالها واي طبعا تشتغل easier وانا soo qalajinaya kan waxaan ku sameynaa taqaana cheesecake markaan sameynaa design-kan ku sameynaa kan naga dhig okay I don't even know meeshaan ka keensada cheesecake markaan sameynayo waxaan ka waday maaragtay kaga gasho sharaxaad inay leeyihiin ya icingkay dhahaane saasaan ka waday cheesecake ah sharaxaadaas markaan sameynayo insha allah biidnillah markaan isticmaalayo waan nala soo wadaagi doonaa waa ogtihiin walaashiin wax walba idinla soo wadaagtahay badkeedkaanayto oo saan u ego silverkan ah waa idiin sheegay amiir reer Canada hadaa tahay meel kaloo laga helo ma garanayo dukaamada carabta fiiriya okay dukaamada carabta I think inay gadaan groceriyada ama xalaal stoorka Soomaalida groceriyada waxa la dhahaa biscuitka keedka lagu sameynayo saas loo riixay meeyda maybe inay hayaan who knows meel kale maan ku arkin halkaas aan kasoo katawaagi and last year was the first time I isticmaalay this is my second year I isticmaalayo I love it keegi horaan haystay wuxuu ahaa afkiisa horaa plastic ahaayeen way jabi jireen cracks yeesheen because hadduu biscuit markaa adkaado waa kaa hoolaabaya hadduu jilicsan yahay ma shaqeynayo anyways ka faa'iidaysi wanaagsan ku leeyahay waxaan ku nacay hadda ogaaday waqti badan u qaataa ku kala dhag ka siinaysaa okay kana afweyn labadooda so let's see this one wuxuu soo saaro geedkan wuxuu ku xun yahay walaalahay maaragtay reer Canada ah haddaad soo gadatid kii kala haysan jiray problemkaas xataa wuu qabay laakiin saas uma badnayn kan laakiin problemku qabo halfna wuu kusoo saaraa halfna gadaali gelay halfna wuu kusoo saaraa halfna gadaali gelay so adiga marka okay so birbiraha inta kusoo aadinaysaa moogta and you will figure out meesha but qaarna gadaali soo aadaysaa qaarna waa kuusoo baxeen saas markaad tirahdid soo saaraya okay fiiri hadda waxaan idiin sheegaya aynu tusiyo okay waxaan tusinayaa geedkan dhibaatadu qabo kan inaa furtid waaye saas markaa usoo jeedid fiiri intana qaara galaya see intana qaara galaya xaggana qaara galaya I don't know maybe because neefta kii kale wuxuu la qarxi jiray waa waxaaseeto no meelay aad u leeyahay qaara baxay oh well anyway wallahi biscuitkaanito oo traditionalka ah dhibkiisa iska qabaa kood waxa badan sameeyay that's good enough haddaad adkaysid kuma shaqeynayo that's why aan ku leeyahay gacantaada ayaa ku ah dareenka okay waad dareemi kartaa hadduu dhegdhegiisa badan yahay geedka ma kasoo baxay laakiin hadduu adag yahayna geedka ma soo baxay soo labada dhinac waxa waaye inaa maaragta qiyaas ku socotid waaye birtaan waa idin sheegaya exactly meesha ka keenay waxaas oo dhan okay lacagtiisa xataa saas expensive mu ahayn $20 ahaa back in the days markaan soo gadanayay 2 years ago but I don't know hadda intuu yahay waad ogaan doontaan insha allah markaa meeshaas ka karaysataan idin tilmaami doonaa okay so walaashayda oo tirada Amazon-ka waxaan ku dhihi lahaa ka faa'iideyso runtii u sameey caruurta buskudkaana tacabar oolaya haddii maaragtay ilmaha buskud jecel yihiin buskud Soomaali aad iyo aad buu u sahlan yahay kana xoogaa waa ka jecelsan yahay kii kaleeto oo aan ku darin maxaa lahay geedkii waraangada kan waraangada ku daray iyo kan waa kala duwan yihiin kan waraangada ku daray xoogaa waa ka jecelsan yahay so ka faa'iideyso wanaagsan oo ku leeyahay xoogaa yarkan dabka iga fakada mujeedada because dabkan ku iloobay kan kale ta arki doontiin saan u ilaalinayo because way kala duwan yihiin kan qafiif uu ahaa okay kan kale tan xoogaa waa ka adag yahay waa ka arki doontiin videoga hopefully inaan kala dareemi kartiin okay I don't want you maaragtay hadhowtiin aad tirahdid mashiin xun buu ahaa mashiinka waa inaa ilaalisaa okay maaha mashiinadaan oo professionalka oo heatka ilaalin kara temperatureka ovenka waxa laga yaabaa inuu kaaga ka duwan yahay keega waxa laga yaabaa qof kale markuu isticmaalo kiisa kale ka duwan yahay si kale u sameeyo soo ujeeda aniga hadda keega temperatureka si uu kala duwan yahay dhexdoo dhan ma bislaanin kan ah gadaalna kama bislaanin soo haddaan ku daayo wuu iga gubanayaa haddaan ku daayo oo ku dhaafo sidiisi hoos uu ka gududana ama qaaraa gudgudanaya soo hadda waan gadiyey wax yaraan ku celinayaa aan isdaan si kan xataa dabka aad u boobsiinaa moogta yiri hoos uu ka bislaaday kor kama bislaanin inkastoo kor cadaankiisaas lagu dayn karo laakiin anaan jecleen
waxyaalaan jeclaa inaan ku celiyo dabka intaasaa ku gediyo maybe ovenkeyga wuxuu yahay high 400 dhaqsaan jeclaan wax sameeyo have I told you inaan ahay qof jecel inay waxa boobsiis ku sameyso yeah so that's why maybe 315 aan ka dhigo 375 waa idiin sheegay hore idinkuu sheegay fideoyada badankooda idiin sheegay waxay dhahaa walaashiin waxay jeceshaa wax inay boobsiis ku kariso okay this is not something new okay waa ujeedin hadda inta ugu dambeysay buskudka waxaan qaatay labada kalena isku dhex qasay maaragtay waxaan ka dhigay nooc kala ah marble wax isku qasanaa ka dhigay maxaan sameynaya markaa mataqaanaa oo yaa idiirigeliya mataqaanaa walaasheena Rumi Kitchen Rumi channel waxay ii dhiirigelisay buskudkeeda markaan arkay waxaan dhahay I never weligay misdhinsaan loo sameyn karaa buskudkan so why kana aan sameynayo ka faa'iideysi wanaagsan haddaad walaashii arkin channelkeeda buskudkeeda ciid ay u diyaarinaysay waa kaasa okay design qurux badan ka soo dhaxbaxay muunka markaa ka leexiyay design kala dhexda kaga jiro waa laba nooc buskudkii laba nooc ayaa u sameeyay I couldn't believe it I was so impressed so waxa waaye xoogaa yarkan dambe markaan haddana qasaayo xoogaa wax malaysaa inuu iga jarjarsan yahay so waxaan sameynayaa geedkan la dhaho almond flour ay yaalo waxaan rabnaa sameyn mataqaanaa buskud ee qadiijo beri noo samaysay ilaa iyo hadda waxaan ka kari lahay ma tijaabis mar labaad samaysid alla ilmahaana wax haday kugu bartaan bes waay waxa waay lagu canaadaya waxay tiraahdaa hooyo waqti badan waaye waa runteeda waqti badan u qaataa because aniga markaa isku dayay I couldn't do it so ujeedin almond flour kaas waxaan kasoo gatay Costco so qabal qaada baan ku dardaray aan ku burburiy so loos camal dabku galaya anyways waa la karinayaa so flour ahna maaha waa looska bus laga dhiga camal waayo bur laga dhiga camal ma fahmino so waa balbalaarinaya and then hoo ujeedaa si color qurux badan ayuu kusoo baxay hadhowna chocolate-kii maaragta harharay ayaan kor kaga daadaadinayaa waa ku xumahay clipkaaseeto waxaasoo dhan ma duubi karin because rush hour aan ku jirnay waa kuu sheegay maalintaan sameynaya waa maalintii aan isdhahayay ma rabin inaan wax qabto balse cookingaana igu soo dhacay buskudkan waa u baahneen aan waxaan idhaa why not subaxii ahayd aan galabtiina markaan sii baxayn wax isdhahayay hadhow video ka qaad habeen bari nagu noqotay ciidii isku diyaarinay I totally forgot clipkaas inuu iga maqan yahay but waa ujeedin wixii yarkaa miiska kasoo qabtana waa arki doontiin chocolate aan kor kaga daadaadin ku qurxinay waa bisilyaaya markaas dabkaan kasoo saaray but muu ekin uu bisilyaa anyways walaalaheen jeclaha jazakallahu khayra daawanayseen fadlan hadday igu cusub tahay subscribe-kii taaw like-gii saar sii share garee waynoo mar kaleeto videoga insha allah okay please give me a thumbs up insha allah خير إذا رجعنا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وينو فيديو قدام باي